taariikh nololeedka quruxleyda Bollywoodka Juhi Chawla min bilow ilaa dhammaad. Soo dhowow daawade mar kale, waa anigoo ah Axmed Deeq Xasan. Halkan aad naga dawanayso waa deeqsame, nala joog ilaa iyo dhammaadka muuqaalkan. Mahadsanid. Juhi oo sanadkan 55 sano jirta, sidaa darteed anagoo tixgelinayno maqaamka sare oo ay xidigtan fanka ka gaartay, waxaan garwaaqsanay inay muhiim tahay inaan idinla wadaagno taariikh nololeedkeeda. Juhi muddo 30 sano ka badan ayay Bollywoodka ka tirsan tahay, waxayna soo martay marxalado kala duwan ilaa ay ka noqotay atirishada Bollywoodka ugu awoodda badan sagaashanaadkii. Xidigtan waxay atirishooyinka kale dheer tahay soo jiidasho u gaar ah, qosol qalbiga taabanayo, shactiro samaynta iyo inay jacaylka si wacan shaashadaha ugu soo bandhigi karto. Juhi iyo bilowgii nolosheedii marxaladaha ay soo martay. Juhi waxay ku dhalatay Ambala, Haryana, waqooyiga Hindiya sannadii 1967. Juhi aabbaheed wuxuu ka tirsanaa waaxda dakhliga dowladda Hindiya, wuxuuna ahaa sarkaal si weyn loo tixgeliyo dhanka fanka. Waxaa ehel u ahayd Kiara Advani oo ahayd atirisho Bollywoodka ka tirsaneed, sidoo kalena Juhi eedo u ahayd. Juhi waxbarashadeedii hoose iyo dhexe waxay ku qaadatay Fort Convent School, Mumbai, sidoo kalena heerka sare waxay takhasuskeeda qaybta Human Resource ku qaadatay Sydenham College, Mumbai. Nasiib wanaag, quruxdeedii ayaa la isla arkay, waxayna sannadii 1984 ku guulaysatay Miss India ama gabadha Hindiya ugu qurxoon. Sidoo kalena tartankii quruxda jaamacadaha adduunka loo qabtay Miss Universe sannadii 1984 waxay ku guulaysatay abaalmarinta labiska iyo naqshada dharka ugu qurxoon, Best Costume Award. Juhi sidoo kale waxay aad u baratay cayaaraha dhaqanka, iyadoo dhalin yar ha ka reebin inay xitaa sida heesaha loo qaado ay baratay, waxayna ahayd gabar dadaal badan oo jeclayd inay xirfad walba wax ka fahanto. Juhi soo gelideedii fanka iyo kartidii ay muujisay quruxleydan iyadoo dhalin yar ayay aqbashay inay door kooban ka qaadato filimkii Jilayaasha Miisaanka Culus la isugu keenay Sultana ee Dharmendra iyo Sunny Deol la jishay. Balse filimkan ganacsi ahaan wuu guul dareystay, sidoo kalena Juhi inay ku jirtay iyo in kale lama dareemin maadaama aysan ku lahayn boos wacan. Xidigtan waxay u guurtay samaynta filimada gobollada regional movies iyadoo wax ka jishay filimkii kala sig noqday Premaloka oo ay shirkadda reer Kanada lahaayeen, wuxuuna noqday blockbuster weyn. Sidoo Juhi si weyn ayaa loogu ammaanay filimkan sannadii 1987 la daawaday. Nasiibka ayaa Juhi si wacan ugu hiilayey maadaama ay kaaliin muuqato ka qaatay filimkii jacaylka ahaa Qayamat Se Qayamat Tak oo ay Aamir Khan la jishay. Juhi xidigta ugu shacbiyada ballaaran Hindiya ayay noqotay, waxayna filimkii Qayamat Se Qayamat Tak ku qaadatay atirishada ugu wanaagsan ee Bollywoodka ku cusub, taasi oo ay shirkadda Filmfare Awards bixiso. Qayamat Se Qayamat Tak wuxuu noqday filim dadka Hindiga dooqooda bedelo maadaama awal ay shacab weynaha aflaanta dagaalka jeclaan jireen, waxayna Juhi noqotay quruxley la wada jecleedo mustaqbal wanaagsana Bollywoodka ku yeelato. Waxaa intaas u dheer, Qayamat Se Qayamay Tak wuxuu u suura geliyey Juhi inay markii ugu horreysay abaalmarinta atirishada ugu wanaagsan Filmfare Best Actress Award u tartanto, balse kuma guulaysanin. Juhi iyo marka ay guusha saaxiib la noqotay kana mid noqotay Superstar-da laga dambeeyo 90 ilaa 93. Juhi sannadii 90 waxay la timid filimkii kala sig noqday Pratiband oo ay la jishay Chiranjeevi, wuxuuna filimkan noqday mid guul weyn gaaray. Sidoo kalena Juhi ay ammaan fara badan ku heshay, weliba abaalmarinta atirishada ugu wanaagsan ayay markeedii labaad u tartantay. Isla sannadii 90 filimkii weynaa Swarg ayay Juhi door wacan ka qaatay, waxayna la jishay Rajesh Khanna iyo Govinda asigoo noqday filimkan hit weyn. Juhi nasiibkeeda ayaa la isla arkay, wuxuuna filim sameeyo walba bilaabay bilowgii 90 inuu baadi goobo, laakiin xidigtan filim walba inay samayso xiiso kuma haynin. Juhi qaab jiliinkeedii ayay sare u qaaday, waxayna sannadii 92 Bollywoodka kaga yaabsatay filimkii Bol Rada Bol ee hitka weyn noqday, waxayna Juhi la jishay filimkan Rishi Kapoor iyadoo markii saddexaad ugu tartantay abaalmarinta Filmfare Awards. Sannadii 92 Juhi waxay ku qatintay filimkii Rajuban Gaya Gentleman oo ay Shah Rukh Khan la samaysay, sidoo kalena guushii wacnaa gaaray, waxaana markaas u bilaabatay la shaqaynta Shah Rukh Khan oo ay aflaan badan oo wacan isla jileen sannado badan.
Sannadii 93 waxaa lagu tilmaamaa sannadkii Juhi Chawla maadaama ay samaysay aflaantii lacagaha ugu badnaa soo xareeyeen sidoo kalena abaalmarin walbana ay ku guulaysatay. Filimkeedii koowaad wuxuu ahaa Lotare oo ay Sunny Deol, Naseeruddin Shah, Junkay Bandey iyo Anupam Kher la samaysay. Juhi doorkeeda aad ayaa loo ammaanay sidoo kalena filimkan guul fiican ayuu gaaray. Filimkeedii labaad wuxuu ahaa Aina oo ay Jackie Shroff la jishay wuxuuna filimkan ka mid noqday taariikh ahaan aflaanta ugu jiliinka wacan oo ay Ebit Juhi Chawla samaysay sidoo kalena hit weyn ayuu noqday. Sanadka ha ku wacnaado ayay sheekada u ahayd Juhi waayo filimkeedii saddexaad 93 wuxuu ahaa Hum Hain Rahi Pyar Ke oo ay Aamir Khan la samaysay wuxuu noqday filim klasig ah oo lagu daray diiwaanka aflaanta Bollywoodka ugu wanaagsan oo ay Ebit sameeyeen. Filimka Hum Hain Rahi Pyar Ke wuxuu u suura geliyey Juhi inay markii ugu horreysay ku guulaysato atirishada ugu wanaagsan Bollywoodka oo ay shirkadda Filmfare Awards bixiso. Juhi oo aad u faraxsan waxay sannadii 93 ku qatintay filimkii blockbuster-ka weyn noqday Dar oo ay la jishay Sunny Deol iyo Shah Rukh Khan sidoo kalena si wacan ayay Juhi filimkan doorkeedii dhibka badnaa kaga baxsatay. Juhi iyo markii ay hoos u dhac weyn la kulantay waxay ahayd 94 ilaa 96. Juhi inta badan filimadii ay samaysay sannadii 94 waxay noqdeen kuwo guul dareysteen sidoo kalena boqoradii Bollywoodka hoos u dhac weyn ayay dhadhamisay. Laakiin sannadii 95 ayay xoogaa soo yara kacleysay ayadoo samaysay filimkii Ram Jaane ee hit ka noqday oo ay Shah Rukh Khan la jishay iyo filimkii Naajayas ee Aferege ka noqday oo ay Ajay Devgan la jishay. Xidigtan quruxda badan sannadii 96 sidoo kalena madaxa dhulka kama ceshanin waxayna samaysay 3 filim kaliya. Filimkii Lofer oo ay Anil Kapoor la jishay ayaa guul dhexdhexaad ah gaaray balse filimada Daraar iyo Bandish labaduba way ka dhaceen Juhi iyo markii ay soo rogaal celisay 97 ilaa 99. Dadka baxoficika ka faaloodaan ayaa qoreen in Juhi calankeedii dhacay laakiin xidigtan ayaa si la yaab leh u soo laba kacleysay. Sannadii 97 wuxuu noqday sannadkii Juhi ayadoo samaysay aflaan guulo waaweyn gaareen waxaana ka mid ah Yes Boss hit, Ishq Super hit, Deewana Mastana hit iyo Qiladii semi hit. Juhi ammaan aan la soo koobi karin ayay ku heshay dhammaan filimadii ay sannadii 97 samaysay weliba qaab jiliinkeeda shactirada ku dheehan ayaa aad loo ammaanay waxayna qabsatay masraxa maadaama ay si adag u soo laba kacleysay. Sannadii 98 mar kale Shah Rukh Khan ayay la shaqaysay waxayna la jishay filimkii Dubli Ate ee Mahesh Bhatt sameeyey balse filimkan sidii laga filayay ma uusan noqonin waana mid guul dareystay gudaha Hindiya inkastoo suuqyada caalamka uu wacdaro ka dhigay. Sidoo kale 98 waxay samaysay filimkii Joodh Bole Kawa Kaate oo ay Anil Kapoor la jishay inkastoo filimkan guul dareystay haddana sheeko ahaan si weyn ayaa loo ammaanay. Juhi sannadii 99 waxay la timid filimkii wacnaa Arjun Bandit oo ay Sunny Deol la jisha filimkan guulaystay si weyn ayaa Juhi loogu ammaanay maadaama ay ku soo bandhigtay weji aan looga baranin. Bilowgii qarnigan Juhi iyo heerkeedii fanka oo isbedelay 2000 ilaa haatan Juhi waxay bilowday inay aflaanta maalgeliso sidoo kalena Shah Rukh Khan ayay xiriir wada shaqayn ee dhanka filim maalgelinta wada gaareen laakiin filimkoodii koowaad Phir Bhi Dil Hai Hindustani ee sannadii 2000 soo baxay wuu guul dareystay. Sidoo kale xidigtan aflaan guul dareysteen ayay 2000 la timid oo ay ka mid ahaayeen Gang, Karobaar iyo kuwa kale. Juhi sannadii 2001 waxay Shah Rukh Khan la samaysay filimkii sida weyn loogu qasaaray ee lagu magacaabo Kow Laba Ka Afar wixii markaas ka dambeeyey xidigtan waxay bilowday inay doorar kala duwan samayso. Filimkii Ekrishta ee Akshay Kumar iyo Karishma Kapoor hogaamiye ka ahaayeen ayay door walaaltinimo ku matashay wuxuuna noqday filim guul dhexdhexaad gaaray. Sannadii 2001 wixii markaas ka dambeeyey Juhi waxay bilowday inay samayso aflaan sheeko ahaan aad loo ammaanay balse ganacsi ahaan guul dareysteen oo ay door wacan ka qaadatay waxaana ka mid ah 3 Deewareyn 7 Bhere iyo My Brother Nikhil. Sannadii 2006 filimkii weynaa Salaam ee Ishq ayay door fiican ku yeelatay ayadoo Anil Kapoor la jishay balse filimkan wuxuu noqday mid si weyn loogu qasaaray.
sidoo kalena sannadii 2008 filimadii Botnut iyo Crazy 4 ayay doorar fiican ku yeelatay kuwaasi oo guul dhexdhexaad ah gaareen. Sanadadan waxay boos la taaban karo ku yeelatay filimkii Son of Sardar oo ay Sanjay Dutt xaaskiisa ku matashay, waxaana filimkan hogaamiye ka ahaayeen Ajay Devgan iyo Sonakshi Sinha. Juhi waxay filim aad loo ammaanay sheekadiisa Gulaab Gang la samaysay Madhuri. Inkastoo filimkan guul dareystay, haddana Juhi booskeedii laadarnimo si wacan ayaa loo ammaanay. Juhi iyo nolosheeda gaarka ah. Juhi waxay guursatay sannadii 95 ganacsadaha weyn ee warshadaha iska leh Jay Mehta. Labadan lamaane waxaa u joogaan gabar lagu magacaabo Janvi oo dhalatay 2001 iyo wiil lagu magacaabo Arjun oo dhashay sannadii 2003. Juhi iyo saygeeda waxay iska leeyihiin kooxda cayaarta arikeed ka cayaarto Kolkata Knight Riders. Sidoo kalena Shah Rukh Khan ayaa kooxdan wax ka leh, waxayna kooxdan ku iibsadeen xagaagii 2008 lacago lagu sheegay 75 milyan. Kooxda Kolkata Knight Riders qiimaheeda sare ayuu u kacay maadaama ay 2 jeer ku guulaysatay horyaalka Hindiya, waxaana lagu qiimeeyey naadigan inay suuqyada caalamka xilligan ka joogto 42 milyan. Juhi walaalkeed Bobby Chawla wuxuu geeriyooday sannadii 2014 kadib markii uu muddo 4 sano ah koomo ku jiray, wuxuuna ahaa madaxa ugu sarreeyo shirkadda Red Chillies Entertainment ee uu Shah Rukh Khan iska leeyahay. Haddii aad ka hesho muuqaaladeena fadlan nagu dhiirigeli legtaada channelkeennana ku soo biir siina gudbi muuqaalkan si aan u helno saaxiibo adoo kale ah. Waadna ku mahadsan tahay tixgelintada.